kalfadhiga 46aad ee golaha wakiilada dawladda Puntland fadhigiisa 12aad waxaa shir gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koobaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan iyo ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame. ajandaha fadhiga maanta ayaa ahaa dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirweynihii wadatashiga Puntland ee 15 Maarso sanadkan lagu qabtay magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland. Gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo gudoomiyay kalfadhiga golaha ayaa ka warbixiyay ajandaha fadhiga maanta looga hadlayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ajma'in. Gudoonka mudanayaasha golaha wakiilada hawlwadeennada golaha warsharafta iyo baada saxaafadda waxaan ku salaamayaa islaamka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. mudanayaal soo wanaagsan insha Allah waxaan guda galaynaa ajanteeni shalay waxaan ka gudubnay qodobkii doorashada difaaca xuquuqul aadanaha Puntland qodobka toddobaad buu ahaa maanta hawleedkeena waxa weeyaan qodobka 8aad ee ajantaha waa dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga Puntland. Mudanayaal ku soo dhawaada insha Allah billahi kariim kullay go'aanna wanagii soo saarnay oo qayb ka mid ah ay wax ka dhiman yihiin iyo qodobkaas aan inta ka gudnaynaba marka ku soo dhawaada mudanayaal. xildhibaanada golaha wakiilada ayaa furitaanka fadhiga kadib ka dooday dhaqangelinta qodobadii shirweynaha wadatashiga Puntland. dood dheer kadibna xildhibaanada ayaa isku raacay in dib loo dhigo qodobkaas. dib u eegista dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirweynaha wadatashiga Puntland ayaa ka dambeysay kadib markii xildhibaanadu ay talo ku soo jeediyeen in dib loo dhigo maadaama uu ka socdo magaalada Dhuusamareeb shirka wadatashiga dawladda federaalka ee dawladaha xubnaha ka ah isla markaana horay goluhu qaraar uga soo saaray arrimaha siyaasadda ee dalka ka socda. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed warbaahinta dawladda Puntland Garowe.